بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maalin wanaagsan. Saakay waxaan fariintan soo diyaariyay u gudbinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa dalka iyo dadkaba sidii loo nabadeyn lahaa nabad laga shaqeyn lahaa. Waxaan rabaa si gaar ah inaan uga tacsiyeeyo dadkii ku dhintay shaqaaqadii dhawaan ka dhacday magaalada Laascaano. dhibaatada magaalada Laascaano ka dhacday waa fogtahay, waa dhibaato culus. in hore badanna waan ka dignay, waana ka hadalnay, haddana inaan rabnaa inaan u tacsiyeeyo marka hore dadkii meesha ku dhintay, qoyskii, dadkii kale odayaasha ahaa, dhammaan waxaan leeyahay samir iimaan Allah naga siiyo. inta ku dhaawacantayna muxuu Allah caafiyo. nasiib darro weyn waaye maanta in Soomaaliya meel ka mid ahay wali qoray la soo qaato. arinta Laascaano iyo Sool iyo Sanaag hadda ka hor dhowr maraan ka hadlay. مواقفta dawladda federaalka iyo aragtidayda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aan wax weyn iskama bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaal ah, wiil iyo abti ah, waa dad maxaan ku yiraahdaa inan iyo sodogiis iyo inan seedigiis ah, dad isdhalay isdhex degay isla dhashay waxa isku haystaan marka jirnacayb iyo dad nacayb maahana waa siyaasad. horena waxaan u yiri aan u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah mushkiladaasi Sool iyo Sanaag ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo. siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinayo ayaana xalka muxuu ah Sool iyo Sanaag ay ku dhex jiraan. sidaas daraadeed waxa meeshaas ka dhacaya waa ka xunahay, raalli kama ahin in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyana suurtagal maaha. rabitaanka dadka ha la ixtiraamo, qoryaha ha la dhigo, xabadda ha la joojiyo, هلا وضع هدلو ميسك وضع هذا الكهل السوقي ماذا هلا وضع هدلو. دولة فدرالك الصومالية مدحونا الجمهورية دادان أي ديار وحانو هاي مال كستا أو نبض داسي لوغا هدلايو يعد كستا أو نبض داسي إني كهذا شجع علبة إن أنا قرب تاجنا هاي والصفرة تولد وفوق ديتاي إن أنا تجان ديار وهاي لكن ولا ليال حلق مرنا قوما إيمانا يقول إن أنا بقولال أما قوما نقف إنتان دلنو kadib korkooda hadhow aan isku gacan salaano oo aan nabadan aan ka dhalinay aan dhahno xabadka isku saarno waa laga rooyaa. balaayada bootin bakayla ayay leedahay hal la joojiyo intaan faraha ka bixin. berri inaan xabadka is saarnay inaan hubo in la heshiinayo yaanan meedadkeena iyo xabaalaha dushooda yaanan ku heshiinin, dadku intay nool yihiin aan heshiino. hal la joojiyo maamulka cidda sheeganaysa, cidda odayaasha dhaqanka ah, culamaa u diinka, مسؤولينta siyaasiyiinta qof walba doorkeeda nabadeed ha qaadato. colaada Laascaano siima socon karto, lamana aqbali karo. hal la joojiyo miiska wada hadalka la isugu yimaado. dawladda federaalka waxay diyaar u tahay inay fududeyso, ka qayb gasho, kaalmayso. haddii toos dadka hadda ay colaadu dhaxmartay u wada fariistaan arinta waxa ka socda Laascaano waa aragti siyaasadeedna qoran kuma xalisanto. xalkeeda qoray kuma yimaado kan raba iyo kan diidanbo xalkeeda qoray kuma keeni karaan. hal isu yimaado hal wada fariisto. mar walba horaan uga shaban mushkilada ka jirta Sool iyo Sanaag waxay ku dhex jirtaa xayndaabka jirinta aan jirinayna arinta midnimadana anagu go'aanay naga tahay xoog inaan ku raadino ma doonayno, nabadaan rabnaa inaan ku raadino. dadka rabitaankiisana hala dhowran leenahay. meeshaasi colaadaasi colaad dadka qabata maaha, dadka Soomaaliyeed ma qabato, dadka deegaanka guud ahaan ma qabato. hal joojiyaan ku baaqayna mar kale culamaa u diinka iyo odayaasha dhaqankana ayaga deegaanadaas oo dhanba nabadeeda waligood ka talin jiray, nabadda ha ka taliyaan. inta qoryaha dadka haysta amarka kule ama kule maxaan ku raadaay raadka kulane hala hadlaano ha joojiyaano. wiilasha qoryaha laga qaado, hal damiyo colaada intaas. Soomaaliya guud ahaan meel kasta walaalayaal waxaan leenahay colaada ka jirta hal joojiyo, xumaanta hal joojiyo, nabadda lagu baaqo. lama aqbali karo dhiig kale oo Soomaaliyeed oo daad wax la aqbali kara ma. meel kasta ha joogo, sabab kasta ha loo soo waxeeyo. haddiina markaas aanan lagu difaacaynin diinta iyo dalka iyo dawladnimada. laakiin reer hebel iyo deegaan hebel iyo koox hebel sidee warkeyga u diidi kartaa iyo koox hebel warkeeda ma doonayno muxuu ahaay xalku ma noqdo. ha laga yimaadaan leenahay walaalayaal meeshaas. waxaa kaloo ayada halkan rabaa inaan baaq uga jeediyo odayaasha reer Puntland iyo waxgaradka iyo mas'uuliyiinta iyo maamulka dawladda meesha ka jirtaba
ayagana waxaan ugu baaqaynaa nabad walaalayaal warku balaayadu marka ay bilaabanaysa meelo khafiif oo sahsaalan ay ka bilaabata meelo fog ay ka bilaabata dalkaas iyo dawladdaas iyo deegaankaas reer Puntland nabad ay weligood haysan jireen nabadii inay haystaan aan la jecelnahay ayaguna waxaan ugu baaqaynaa in arinta wada hadal lagu dhameeyo odayaasha dhaqanka ha qaataano kaalinta ay leeyihiin oo ah kaalinta nabadeed haddana ay qaateen waan ku bogaadinayaa inta odayaasha istaagay ee u istaagay arintaas in nabad lagu soo xalliyo arinta nabad ha lagu xalliyo dawladda federaalka Soomaaliya sidaan hore u sheegay wax kasta oo nabadaas ka qayb qaadanaya laakiin ma saacideyno ma taageereyno raali kama ahin in mushkiladaha na dhex yaala in qoryo aan soo qaadano ku xalino kuma xalli karno nooguma xalismayaan baraan heshiinayna ilaa meelan kala aadayna male xabaaraha korkooda aan ku heshiinin nabadda korkeeda aan ku heshiino deegaanada dhan intaas aan ugu baaqaya meel kasta oo khilaaf siyaasadeed ka jirana wada hadal aan ugu baaqaya waxaan hadda isku haysanaa isma nicbin waa siyaasadana daawadeeda iyo xalkeeda dariiqa kaliya ku yimaado waa dariiqa dimuqraadiga ah oo in la wada hadlo ah hal la wada hadlo anagoo dhaqankeena suuban ilaalinayna diinteena ilaalinayna dadkeena u tureen aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.